بسم الله الرحمن الرحيم maanta taariikhdu tahay 8 bishii June 2019 waxaa qabsoomay kulankii afraad ee guddiga joogtada baarlamaanka tobnaad oo ah kalfadhigii shanaad. ajandaha guddiga maanta waxa ugu badnayd oo la isu taagay oo laga shaqeeyay waxa ahayd hakadka uu galay baarlamaanku golaha shacabku ku saabsan maadaama ay ramadaan timo dadka cumro u baxeen iyo cibaado la wada baxay oo hakad la geliyay muddo 12 bari ah la geliyay si waajibaadka loo guto in hadda dib loo furo ayaa waxa go'aan lagu gaaray inuu noqdo 15 June oo ah maalinta Sabtida oo weeyga soo socda Sabtida maanta Sabtideeda in la furo marka xildhibaanada waxa loogu baaqayaa inay gabi soo xiroodaan inta ka horeysa Muqdisho ku soo xiroodaan si oo furitaanku suuragal u noqdo. waxa kale oo qodobka labaad oo aad loo amal shaqada ahayd wuxuu ahaa ajandaha inta ka hadhay kalfadhigan hadda lagu jiro in ajandihiisii la dhamaystiro waa laga shaqeeyay سوينا وقت بدن بحقات ولا يشقي يقولوا هاي مرة بين يسبدلوا أو هذانا مرة لبعض ولا شرايا أن هو في الوقت خميس تاني نقندوته مرة لبعض الجودية جوتها إن أرمها مرة بعد هذانا لسيوي دونا لبعض القضاء هو مهم سنة وحنا قدومنا الشركة قدوميها قالها شعبك هيا قدومنا أمباسدور معرفة مرسل هيا قدومنا gudoomiyaha marka intaas baa jirta waxa aad loogu adkeenayaa dhammaan xildhibaanadu inay ku soo xiroodaan muddada la sheegay 15 June oo maalin Sabti ah in ay noqoto maalinta kalfadhigu hakadka ka baxayo oo shaqadii caadiga la bilaabayo. arrimaha kale laga hadlay oo aan ahayn kuwa waaweyn waxa weeye waxyaabo iska caadi ah sida guddiyada soo shaqeeyaan iyo waxyaabaha isla xisaabtan guddiyada ah iyo administration-ka wax kale intaas baa ugu muhiimsanayd waa mahadsantiin.